بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك مسلمين تعمل كستاج جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبي جنيه دنبي والدكنا دافو ولا لي اللهم على كهر دمشق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوصب بحي صحابة يوصب بحي من بركة يوصف ولي وحدوكت النبي محمد عليه الصلاة والسلام حنونكي وكوجيري ودي إنه دب بدن كلا كل مي أي قنادو فر بدن هيسي ساسي تهينا وحوصب بحي مساجدك وحوف ولي من بركة wuxuu u khudbeeyay saxaabada wuxuuna yiraahday dadow qofkii wax igu sheeganaya qofkii aan dulmiyay qofkii aan wax ku suubiyay qofkii dayn igu leh qofkii aan maalin uu wax ku suubiyay maanta hayga aarsado maxaa yeelay baritoole dirham iyo diinaar wax tari maayaan macnaha qiyaamaha dirham iyo diinaar wax tari maayaan saxaabadii oohin ayay walaalayaal afka furteen way naxeen waxay dareemeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dardaarmayo inuu ka tagayo yaa awooda oo gacanta taagan kara oo dhihi kara rasuul allah aniga ayaa deyn kugu leh aniga ayaad maalin caysay iskaba dhaaf inay dhahaane waxay ceshan kari waayeen oohinta ayay ceshan kari waayeen nin ayaa wuxuu ka istaagay gadaal wuxuu yiraahday aniga rasuulkii allah markaasay saxaabadii yaabeen oo hal mar mataqaanaa indhaha kala qaadeen oo oohintoodii ka soo kaceen markaasaa ninkan ayaa ku dhiiraday wuxuu yiraahday aniga ayaa waxaa kugu leeyahay qisaas ayaan kugu leeyahay waxaan kugu leeyahay mataqaana hadda ka hor ayaa wax ii geysatay soo soco ayuu yiraahday nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii markuu soo dhawaaday ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam gartay markaas wuxuu ku yiraahday warsoo Ukaashata ibn Muhsin ma tihid ninkii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku yiraahday jannada waxaad galaysaa xisaab la'aan ayaad galaysaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam u duceeyay warsoo ninkii ma tihid markaas wuxuu yiraahday ha ninkii baan ahay laakiin adiga ayaa waxaad tiraahday maanta cidii wax igu sheeganayso hayga argudato waxaan rabaa hadda ka hor kilida ayaa wax iga dhufatay ul adoo ciidamada jihaad ka safaysid marka taas ayaan rabaa inaan ka aarsado nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday haye wuxuu markaas la dalbay ushi iyo sida ugu dhacday tii naftirkeeda ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u cidiray waa loo keenay wuxuu yiraahday iga aarso nabiga oo qannada haysa ayaa wuxuu fayday kilidiisa shariifka ah ayuu saas uga qaaday si uu markaas looga dhufto looga aarsado cali ayaa istaagay fi alqisas ya rasuul allah rasuulka allah aniga haliga arguta ayuu yiraahday aniga ayaa soo dhigaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waa diiday wuxuu yiraahday aniga ayaa liga argudanaya qaraabadiisa dhan ayaa istaagtay uu diiday calayhi salaatu wasalaam ninkii Ukaasha ahaa ushi ayuu markaas saas ka siiyay warankii ama baashi uu haystay ayuu halkow saas u gelgelay oo macnaha wuxuu inuu ku dhufto nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigana qannada ayaa haysa uu isu diyaarinay mar labaad ayuu haddana ushi mataqaanaa ruuxay si uu ugu dhufto calayhi salaatu wasalaam nabigana waa sugayay markii saddexaad buu ruuxay markaasuu intuu ushi iska tuuray ayuu mataqaanaa hal mar ku dhagay nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii nabiga calayhi salaatu wasalaam kilidiisii barakaysneed ayuu dhunkaday uu ooyey wuxuu yiraahday aabahay iyo hooyaday ilaahay ha kugu furtee yani wax ka wada duco ka wadaye rasuulka allah ma aan ahayn inaan maanta ka arguto laakiin arrintan waxa uu suubiyay jacayl aan ku jecelahay allahu akbar saxaabadii markaasay oohintoodii oohin kale ugu ziyaadisay walaalayaal saxaabada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saas ayay u jeclaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa jacaylka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nagu arsaaqo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa jacaylka asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam inuu nagu arsaaqo waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa raacitaanka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo salafkii iyo siday kitaabka iyo sunnadu fahmeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiintina u naxariisto xasuusnaad walaalayaal jacaylka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaan raacnaa khayr oo dhan wuxuu ku jiraa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la raaco shar iyo balaayo iyo dhibaatana wuxuu ku jirtaa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan la raacin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin naxariista aakhiri adduun khayrka alla faafiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu